kulanti wanaagsan asxaabay meel kastood naga daawanaysaan kusoo dhawaada barnaamijkeennii ugu horeeyay maanta oo ah maalinimo Arbaca taariikhduna waa 20 May 2026 wararkii soo dhacay intii aynu kala maqnayn ayaynu barnaamijka ku faahfaahin doonaa haddaba qodobka ugu horeeya barnaamijka waxaynu ku soo qaadanaynaa war degdega oo goordhow warbaahinta Pakistan laga soo xigtay waxay sheegeen in wasiirka arrimaha gudaha ee dalka Pakistan uu safar degdega ugu baxay magaalada Tehran ee caasimadda dalka Iran haddaba marka safarkan muxuu daaran yahay haddaba aan idin tuso telefishinka Al Jazeera wuxuu leeyahay wasiirka arrimaha gudaha Pakistan ayaa wuxuu aaday magaalada Tehran sida ay warinayaan warbaahinta waddanka Iran iyadoo la sheegay in laga soo xiganayo diblomaasiyiin ku sugan magaalada Islamabad ee caasimadda dalka Pakistan wasiirka arrimaha gudaha Pakistan ninka la yiraahdo Muhsin Naqawi ayaa wuxuu u ambabaxay magaalada Tehran si uu halka ugula soo kulmo mas'uuliyiin reer Iran ah waana markii labaad muddo isbuuc gudaheeda uu wasiirku u safro magaalada Tehran marka waa markii labaad isbuuc gudihiis uu Tehran tagay haddaba waxaa la sheegaa inta wararkii hore markii safarkiisii warbaahintu waxay sheegeen inuu qaadayay fariimo Mareykanka ka yimid dhanka wada xaajoodka ah Iranna uu ka soo qaadayo fariimo kale oo Mareykanka iyana loo gudbinay marka waxa leeyahay marka safarkan degdega ma waxba iska bedelay Mareykanku maxay doonayaan wuxuuna ku soo beegmayaa xilli warbaahinta Israa'iil ay saakay sheegayso telefoon muddo dheer socday oo aad xasaasi u ah xalay inay ku wada hadleen telefoonkaas Netanyahu iyo Trump markii Netanyahu iyo Trump telefoonka ay ku dheeraadeen oo kollay wixii markaa ka soo baxay ayaa wasiiru daakhiliyaha Pakistan loo dhiibay oo Iran u geynaya marka ninka Netanyahu wuxuu cadaadis ku saarayaa Trump inuusan ka leexan dagaalka madax u galo waxa hub uu haysto Mareykankana uu la dhaco Iran si Iran awoodda ay meesha ku haysato bariga dhexe ay meesha uga baxdo fahmaysan marka inkastoo tafaasiil badan aan laga bixin wada xaajoodkaas laakiin warbaahinta ayaa saakay qoraysa haddaba marka aan idin tuso warbixin telefishinka Al Jazeera goordhow uu qoray wuxuu leeyahay warbaahinta Israa'iil ayaa sheegaysa in Trump iyo Netanyahu ay wada xiriireen oo muddo dheer ay wada hadleen waxaana lagu tilmaamay wada hadalladaasu inay ahaayeen kuwa adag warbaahinta Israa'iil ayaa waxay sheegeen in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu ay xalayto telefoonka ku wada hadleen telefoonkaasina uu ahaa mid muddo dheer ay wada hadlayeen wuxuuna u muuqday mid adag oo markaa arrimo xasaasi ay ka wada hadlayeen marka waa arkaysaa marka way isku xiran yihiin marka wada xaajoodkii xalay telefoonka iyo hadda wasiirkan arrimaha gudaha fariintan Mareykanka ka timid ee uu qaaday kollay wixii ka soo baxa waa la arki doonaa warbaahinta soo gudbin doonta dhanka kale ciidanka ilaalada kacaanka Iran iyaguna war soo saaray waxa moodaa dagaalkii iyo miidiyihii iyo wixii oo dhan in la isla fahmay markii wada xaajoodyo Israa'iil Netanyahu iyo Trump ay telefoon ku wada hadlaan Iran war weyn ay soo saartaa waxa ku wada hadlaysaan waa ogahay way macnaha aniga inaad soo aadaan la soo marabtaan laakiin xisaabta ku sii darsada sheekadaana dhici doontay leeyihiin hadda marka maxay yiraahdeen goordhow warka ay soo saareen ciidanka ilaalada kacaanka Iran waxay leeyihiin xuduudaha mandiqada ama gobolka uu ka gudbi doonaa dagaalka markan xisaabta ku darsada macnaha xuduudaha gobolka waa la isla dhaafi doonaa xuduudaha gobolka maxay tahay waa intan gobolka bariga dhexe dagaalku ka socday wadamada Carabta iyo Israa'iil iyo saldhigyada Mareykanka iyo waxa Soomaaliya hadda waa la iskala gudbi doonaa xisaabta ku dara waxaan isticmaali doonaa quduraadkeena ama awoodaheennii aynaan weli arkin
marka warbaahintu waxay leedahay xageed bartilmaameed noqon karta Yurub ama Mareykan meel kale ma jirto nimanka xagee u hanjabi karaan oo kale xagee kale Mareykan jooga marka laga reebo saldhigyo yar oo Afrika ku yaala sida Morocco iyo Djibouti iyo meelahan iyo Mareykan ku meel ka dadegay laakiin meesha loo socdo xuduudahan waa laga gudbaa la leeyahay waa Yurub iyo Mareykan Iran waxay taagan tahay nagta ka saarayna markan awoodeena la soo baxayna Netanyahu waxba soo qalqaalin odaga gurigiisa ugu tagi doonaa waay odagii Trump marka waa Netanyahuna war ku soo shubaya Iran waxa leedahay gurigaaga u soo socda aqalka cad jugta ka gelinay leedahay marka odagii tooso u waalaalin odaga haduu qafiif yahay waa si wala dooraylay hadaba markaan intuu soo warkan ka soo baxay ciidanka ilaalada kacaanka Iran telefishinka Al Jazeera ayaa sheegay goor dhaweyd in ay markaa sheegeen ciidanka ilaalada kacaanka Iran in cadawgu ay ku celcelinayaan weerar ay ku soo qaadaan Iran balse waxa uu sheegay in Iran ay ka gudbi doonto markan weeraradeedu ay dhaafi doonaan xuduudda mandiqada ama xuduudda gobolka inay dhaafi doonaan hadaba lama oga ilaa hadda xaalku sida uu yahay marka waxa la sheegayaa in Iran ay isticmaali doonto waxa ay ku tilmaantay awoodaha kacaanka islaamiga ah oo markaa ay banaanka la soo bixi doonto dagaalkana ay ka gudbin doonto xuduudaha oo meelo fog ay gaarsiin doonto uusan cadawgu marnaba ku fakirin wallahi cadawga marnaba kuma fakarayo dheed meelahaas inaan gaari karno laakiin haddii marka la istaabto alla ilaahay meesha waa soo salaamayna gataalihii jugta cusla meel kastay tegi karaa waay marka sheeko hadday rag rabtaa ma maqli jirta Mareykanka marka ninkii Trump waxa leeyahay adeeru soo soco aday ku taalaale marka sheekada iyaduna halkaasay maraysaa oo wararkii ugu waaweynaa ee soo kordhay ka mid tahay waay dhanka Hormuz maxaa ka soo kordhay marka xaalad baa ka taagneed Soomaa Hormuz waxa la yiri 3 markab ayaa saacadihii la soo dhaafay ka gudbay midkiibana wuxuu waday 2 milyan oo fuusto oo shidaal ah marka baqaa ka gudubtay 6 milyan oo fuusto oo shidaal ah ayaa ka gudubtay saacadihii la soo dhaaf marka maraakiibta ayaa iska lahaa oo meesha Iran ay fasaxday oo gudbay laba waxa iska lahaa Shiina midna waxa iska lahaa Kuuriyada Koonfureed saddexdoodaas waa la fasax 3 markab oo laba Shiineys leeyahay mid Kuuriya leedahay midkiibana uu wado 2 milyan oo fuusto waa la fasaxay marka meeshaasu cid ugu iman kartaa ma jirtay leeyahay ninka rabnaa fasaxayna ka rabnaa meesha ku haynayna haddaba markaan intuu soo wararkii ugu dambeeyay 3 markab oo kuwa shidaalka qaada oo waaweyn ayaa ka gudbay Hormuz haddaba maanta Arbaca ayaa la sheegay 3 markab inay ka gudbeen iyagoo siday 6 milyan oo fuusto oo nafto ah waxayna ka qaadeen bariga dhexe waxaana ay warbixintu sheegaysaa inay halka ka gudbeen haddaba maraakiibtan ayaa la sheegay inay lahaayeen 2 Shiinaha midna oo iska lahayd Kuuriyada Koonfureed ayaa iska leedahay marka hawshaas iyaduna waa socotaa cid kale u dhawaan karta male banaankaas laga qeelinaya Faransiis yimid Ingiriisi Faransiis waxba isku dubaridayaan markabkii Faransiiska imaaday kana ahayd kaasi in la furo waay warkaas socod Iran waxa leedahay war maxawtara war maxastara muxtara war meeshaan in la baral raba meeshaan anaga mas'uulka taagi cidii tabar isways Yurub iyo Mareykan arwa kaas meesha soo mar anaga raalidi kaga ay marka waa la isbartay meeshaan indhaha la isu shid Iran caadi ma marka qodobka isaguna halkaas kaga gudbaynaa marka waxaanu u gudbaynaa koonfurta Lebanon halkaas waxaanu ogeyn in dagaalo qaraar ay ka socdaan saytaan loo sheegay maahan jug culus gaartaa leen markii Israa'iiliyiinta
way faani lahayn saacadan saana yeelna xisbullah diyaarada drones inta la soo baxday nagta ku haysa baali kasta hadda maxaa soo baxayba generaal ciidamada wata guuta dhan hogaaminayay iyo askartiisa ayaa daakum laga dhigaysaa afarta dhinac inta drones uga geliyeen ayay jugta ka geliyeen meeshu ku jira waa isla wada holaacday meesha ilaa la qarsan waayo Israa'iil marka way sheegaysaa waxay leedahay generaal iyo askartiisii la xulay tirada meeqa askarta lama sheegin laakiin generaalka laakiin waa la sheegay askarti marka aan tuso war goordhow Al Jazeera ay ka qortay wargeyska la yiraahdo wala ay ka soo baxay Israa'iil ayaa waxa uu sheegay in ay dhaceen dagaalo culus waxaana la sheegay in uu dhaawacmay taliyaha guutada taangiyada 401 iyo tiro ciidamada ka tirsan dagaal ka dhacay koonfurta Lebanon haddaba wararka waxay sheegayaan in taliyaha guutada taangiyada ama gawaarida gaashaaman ee la yiraahdo 401 ciidanka Israa'iil uu si xun ugu dhaawacmay maanta Arbaca isaga iyo askar la socotay markii diyaarado drones kuwa isqarxinaya ay ku soo weerareen dagaalyahanada xisbullah deegaanka la yiraahdo Sawt halkaasoo la sheegay in ciidamada ay ku sugnaayeen koonfurta Lebanon marka waa kaas askari markii generaalkii iyo askartiisi halkaas lagu qaramsaday marka iyagu waxay leeyihiin laakiin wuu dhaawacmay halkaas waa dhaawac soo gaaray marka askartii waa dhaawac askarta meeqa waaye meeqa dhimatay meel askartii wala wada hulciyay maxaa ka jira meeshaas haddaba qaybtan waxaynu ku soo qaadanaa mar walba wixii soo dhacay inta aanu barnaamijka ku jirnay oo akhbaar ah haddaba war weyn ayaa hadda soo dhacay inta aanu ku jirnay waxa leeyahay wasaaradda arrimaha dibadda ee Iran waxay sheegtay in laga yaabo inuu u safro wasiirka arrimaha dibadda ee Iran Abbas Araghchi magaalada New York ee dalka Mareykanka sababta safarkiisana waxa waa la leeyahay maadaama ay Shiinuhu la wareegeen hogaaminta golaha ammaanka shir looga hadlayo amniga iyo nabadgelyada caalamka in Iran lagu casuumay halkaas ayuu tagi doonaa haddii aanu wax caqabada ama fiisaha loo diidin Mareykanka aysan caqabada saarin ninka marka la leeyahay Araghchi wasaaradda arrimaha dibadda Iran waxay tiri halkaas uu ka casuumay Shiina iska casuumay oo golaha ammaanka iyo qaramada midoobay hawlahaas u tagi doonaa marka wax waro wali dhanka Mareykanka ka soo baxay male warkan Iran ayaa soo saartay warkaas ayaa ugu dambeeyay barnaamijkeennii ugu horeeyay maanta Arbaca like gareeyo oo share gareeyo barnaamijka haddaad ku cusubtahay subscribe-ka ka iloobi YouTube-ka Facebook-ga follow gareeyo asxaabay meel kastoo naga daawareysaan inta aan mar kale barnaamij kale ku kulmayno haddii alla idmo sidaas iyo